laba muuqaal ayaa idin wada maanta. Labada muuqaal markaad dhameysatid waxaa kaa rabaa inaad go'aan rasmi ah oo raganimo ay qaadatid walaalo. waxaa jiro arrimo mar dhow ama sanadaha soo socda ha noqoto aad ka maqli doontaan gobolada Soomaaliyeed ee haddartaan ciidamada Itoobiyaanka ay qabsadeen ereygaas la isticmaalay hadda kadib ee joogaan iyo ee soo galeen inaga daaya. ereyga annex hal isticmaalo si dunida u maqasho ay qabsadeen. laba muuqaal idin wada oday gardheere nin oday ah oo si fiican u hadlay iyo muuqaal kooxda loo yaqaan Human Rights Watch waa hay'adda dunida xuquuqda aadanaha waxaas ka shaqeyso. muuqaal aad ka wada argagixi doontaan gebigiinaba. falanqaynta hanoo dambayso waxaan rabaa inaan ku bilaabo muuqaalka oday gardheere. dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa maanta wax Soomaali galbeed lagu haayo ha ogaadaan horta. Soomaali galbeed maanta Itoobiya ayaa haysato. waxaan rabnaa inaan ogaano wax ay ku sugan yihiin Soomaali galbeed. Soomaali galbeed gumaysi bay ku jiraan. Itoobiya wuxuu rabaa haddii maaragtaa qabsato Soomaalida kale sida Soomaali galbeed oo u galay inuu noo galay anagana. saadarteed waxaa waaye hadda ayaan ka gaarnaa calool Itoobiyaan weli ma gelin sida Soomaali galbeed ay u gasho calooshiisa. waxaan leeyahay Soomaaliyeed haddaa calool Itoobiyaan gashaan markaasaa ogaa doontaan Itoobiyaanka waxa uu yahay iyo waxa uu ka samaysan yahay. maanta Yahuudda aad arkaysid ee saarayta Falastiinka u galayso Itoobiyaanka ka daran. waa haddaa ogtihiin iyo haddii kale kuwa maanta u sabcinaayo oo Soomaali ah waxaa ogaataan Falastiin waxa ku dhacay ka darnayd ku dhici doono. haddaadan hadda iska qabanina oodan gacnaha maaragta isqabsanina oodan walaaloobina oo Soomaalinimada aad isu qabsanina iyo muslimnimada gacanta aad isu qabsanina oo cadowga soo jireenka ee Itoobiyaanka aadan ka dheedinina. waxaan u sheegayaa kuwa maanta waxa waaye siyaasiyiinta ee shacabka danahooda ku fusha waaya intaas oo ayaasa Soomaan muuqaalka argagaxa leh asagana waa kan halkaas oo madow baan la geynayaa waxaana lagu su'aalayaa marka horeysa ururka onar waxa tira waan taageersanahay waan jecelahay marka tira anigu ma jeceli mana taageersani waxa lagu xidhayaa labada lugood katiinad baa lagaga xidhayaa labada gacanood katiinad baa lagaga xidhayaa si aadan u nuxnuxsanooda u dhaqdhaqaaqin. Soomaali fig baa lagu dhahaa waa la figeeyay marka figta lagu haya gacmaha ayaa la isku xidhaa. waa taas hadda saas igu taala tan kalena waa sidoo kale odayl baa saa loo dardarayaa sidii gobashii baa marka saa loo fidinayaa. kadib marka dadkii qofkii oo ka carcarari karin oo labada gacmoodna ka katiinadaysan laba lugoodna ka katiinadaysan baa dabkii lagu galgalsiinayaa si uu maaragtay ugu gubto oo intuu cabsado waxa laga raadinayo uu sheego. isu keenaan oo qaawiyaan oo ay isku xidhxidhaan bahalka kaga xidhaan guska kaga xidhaan xarig oo midba mid xariga ku jeedo budad bay la dhacaan la dhex qaadaan marka labaad way seexiyaan new bolisku iyo boliskuba intay seexiyaan dadka si guud oo dhammaan shafka ay dhulka u saaraan xabadka iyay ku dul ordaan oo dhex socdaan buriyayaan dhoobadana ku galgashay yiraahdaan qaado in madax lagu soo fororiyo sida lagu fororiyo oo lugahaagina kor laga soo lulo waa biyahaas iyo sawirkii oo qabow oo biyo intii la mariyay qoyan oo aad dhex taagnaan si adoo kor lagu xidhin tagtinada lagu xidho kor laga soo lalminayo. barkada marka biyaheedu waa baraf qabow sida hadda barafka kolku halkan ka daayo kala qabowgaas aniga wax lagu qaboojiyo ma garanayo laakiin inay qabow tahay baan arkay halka rag iyo dumarba marka waa lagu guraya dadka waa la qaaqaawinaya oo maryaha laga wada furaya. waayahay sida hadda wax u socdaan hadana wax ka bedelin sida xaalka hadda uu yahay hadana wax ka bedelin sidaas arrinkaas qisadaas xanuunka badan ee maamada Soomaaliyeed ee muslimka ah iyo aabaha Soomaaliyeed ee muslimka ah qabsatay dhulkii awowgood uu ka xoreeyay Itoobiyaanka laakiin dib loo qabsaday dhulka Soomaali galbeed. qisadaas ummadaas qabsatay ayaa mar dhow aanan fogeen ka dhici doonto gobolada guud ahaan Soomaaliya ee ciidamada cadowga Itoobiyaanka iyo Kenyaanka labadaba ay ku jiraan oo ay soo galeen. waa hadaanan kicin waa hadaanan gacmaha isqabsanin haddeertaan wixii idinka waxay idinla muuqdaan filim camal Soomaalidiinan wixii sidii filim dhammaanaya camal ay idinla muuqdaan. filimka markaad daawanaysid oo argagaxa ah ama weerarada ama dagaalka ah wuu gabagaboobayaa shaleemada iskaga soo bixaysaa adduunkeeda iskaga laabanay. laakiin sidaas ma aha walaalayaalow. maamada hooyada oo dhibaatadaas ay haysato oo inta saas garbaha loo xiro sida arkayseen war adduunka intee laga sheegay
maamooyin ama hooyo saas loo galayo yaa sameeyo qofka sameeyo ama dowladda ama cidda sameyso in hooyo xitaa yuhuud ha ahaato deerto lugaha iyo gacmaha in saas looga xiro miig loo xiro waa hooyo biyo qabow oo baraf ah madaxa loo geliyo naqaska iyo neefta lagu celiyo aabba soomaaliyeed in asagana xaniinyaha looga xiro xirig etoobiyaanka hadda korayna baroweeyaan 2006 2007 magaalada muqdisho qiso noocaasa laga sameeyey rag xaniinyaha looga xiray xirig oo maanta xaniinyahoodii ku waayey qabsashada etoobiyaanka ee magaalada ay kusoo galeen ayaa ilaa hadda jooga codkooda ma maqalno haddii dowladda rag dhale ee tahay bulshada ha la hadasho dadka xasuuqa iyo dhibaatada loo geystay ummadda ha hor keento soomaalida waa emotional in runta loo sheega ma ahan si kale kuma kacaan